farabadan oo xoolo dhaqata ayaa haatan miciin soo bidaya degmada Ceelbe gudaheeda kadib markii xoolihii ay ka dhamaadeen abaaraha iska sadaba ka noqonayay deegaankani gobolka Sanaag. qoysaskan cusub ee haatan ku soo biiray qoysaskii hore uga degnaa degmada Ceelbe gobolka Sanaag ayaa waxay ka soo kici timeen dhulkii ay ku noolayeen xooluhu ku wateen waxaana soo foosartay abaar aad iyo aad u adag. xooluhu markay xerada ka dareeraan dhulka kuma ay farsadaan oo wax kama soo gooyaan waxayna geedka hoostiisa markaba la galaan oon iyo haraad iyo waliba gaajo markaasi ay waxay cunaan ay waayeen. qoysaskan cusub ee haatan ku soo biiray degmada Ceelbe gobolka Sanaag ayaa maanta TV-ga caalamiga uu dhex qaaday si uu markaasi xaaladooda nololeed uu wax uga ogaado waxaan ugu warameen sida tan. bilbaan joognaa hadda waan gartay marka waxaad ka warantaa noloshiina sidee tahay. nolosheedu walaale waxay tahay calaf ilaahiga baanu leenahay oo iska barwaaqa adduunka baanu qabnaa. marka arigiini ka waran. arigayagii waa dhamaaday. haye ari yaroo neefaf baanu haysanay neefafkii aanu haysanay miyiga waa kula joogi weynay oo iska kanin. waan gartay marka halka kale aanu iska joognaayo iska xoolo dhaqatada ahaa oo marka xoolihii jilaalad ku kaceen oo waa la garanayaa baabuuradii wixii la saarayna ay meed u bateen wixii la soo saaray sidoo kale jilaalad ka raacin baanu nahay badna waanu soo xiroonay halkaas ilaahay nagu ogyahay arigii neefafka yaro iga dambeeya haddeer iyo waxyaabahan tagaya dhaamin baa ka soo gaarnay waqtigii abaartu dhacday oo dadkii abaartii xoolihii ay kala tagtay baanu nahay oo markaas iska soo xirooday. waan gartay waqtigii ay xoolihii naga dhamaadeen baan waxaan iska soo galay magaaladii meel cidla ama joogi karno. hantidii aanu haynana way naga dhamaatay. xeradiina hadda waad aragtaan inta ka hadhay xoolihii aan wadan jiray ama ku noolayn kabacdi taadii waxay iga hurtay inaan magaalada soo geliyo dadka ama biyo ha noqoto ama baad ha noqoto ama fuulif ka hel ama haddii la guurayo dee naftu iyadaa ku dirataa. degmada Ceelbe gobolka Sanaag ee shacabka iskaashanaya ayaa habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqay in dadkaasi haatan soo kici timay oo ka soo kici timay dhulkii ay ku noolaayeen xoolihiina ka dhamaadeen in magaalada gudaheeda looga sameeyo gurmad degdeg ah oo markaasi ay bulshada ay gurmato dadkaasi tabaalaysan ee xoolihii ay ka dhamaadeen. isla maanta munaasabadii jimcaha lagu tukanayay ee masjidka jaamaca ee magaalada Ceelbe ayaa dadkaasi muslimiintii ka soo qayb galay salaadaasi jimcaha loo weydiiyay inay markaasi gargaar bil aadantina loo fidiyo. way noo bilaabanaysaa isqoris iyo akoomada akoonka oo ah kan darbiga ku dhigsan ama kaas aad dhigsan iyo oo darbiga u dhijiyay iyo walaalayaal waxaan rabnaa wixii kale isqoraya dadka inay dadku ay isqoraan oo ay ummadda islaamka ay isu faa'iideyso oo tacaawanu cala albirri wa taqwa baa la yidhi walaalaheena islaamka ah oo macnaha walaalaha islaamka inay iscaawumaan oo arrin waajibina ku ah saas darteed isqorista insha Allah tacaala way inoo bilaabaysaa rag baa fadhiya oo qoraya wixii lacagta dirayaana inay lambarka ku diraan insha Allah tacaala waa inaynu khayrka isu kaalmaysanaa. marka insha Allah waxaan rabnaa arrinta inay inoo bilaabato ayaa bilaabaya insha Allah way isqorisku socotaa hala bilaabo insha Allah. ugu dambeyntii duqa degmada Ceelbe Axmed Cali Salaad ayaa bulshadii maanta masaajidka jimcaha ku tukanaysay ayaa wuxuu ugu baaqay in ay lahbari iyo roobdoon ay markaasi ay u baxaan. wuxuuna ugu baaqay bulshadii halkaasi ku tukanaysay dadka haatan cusub ee ka soo kici timay dhulkii ay xoolaha ku dhaqan jireen in gurmad degdeg ah loo fidiyo oo magaalada dhexdeeda looga kaco. waxaana maanta la arkay 4 xaafadood haweenkooda iyo waliba ururada haweenka oo markaasi xaafadaha ku wareegaya kana qaadaya raashin dhar iyo waliba waxyaabo kale markaasi anfaca dadkaasi haatan ka soo kici timay dhulkii ay ku noolayeen ee xoolahooda ku wateen. afartan qoys oo afarta geesooda waa waxa la yiri anigu cilmi ma lihi nin ragana mihi laakiin wax baan maqli jiray waxay tahay afartaa hadday wax isu weydo karo maraqa raashinka lagu darsanaayo ninka ayaa waa inuu badiyaa oo inuu geeyaa ilaa u geeya xaaladdaa sidaa ahayd haddii laba sheegay inay sidaa tahay oo dabkii uusan dadka qaar u shiday dee intii u shidan yahay
يا يقول خرمني الله شدوي وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالمي الصومالي تي في دقمة عيلبو قبل كسنة